هذا إن شاء الله تعالى وحنوقف بحياة شيخ عثمان فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال كلمة أي علماء الدورتين إن وحون لغير هذا حرمة دم المسلم وحي كمتها نفط قفك مسلم waxay ka mid tahay 5 arrimood oo diinta islaamku ay ku qotonto oo ay ku taagan tahay in 5taas la ilaaliyo oo aan la taaban oo wax loo dhibin oo aan loo tagin 5taas shay maxay tahay oo shariicada inteedii kale 5tan waa weyn ayay hoos imaanayeen 5taas maxay yihiin diinta nafta caqliga taranka dadka maalka waxyaabahaas ayay shareecadu aad u ilaalidaa oo aan la ogolayn in loo dhawaado markaad fiirido marka shareecada 5tan siday u ilaaliday oo aysan u rabin in haba yaraatee la taabto dhinac dadka ayay fartay inaan 5tan lagu xadgudbin aayado iyo axaadiis fara badan oo ka hadlaya maalka inaan la taaban karin dadka islaamid xoolahooda inaan si xaq darra lagu shaqaysan karin naftii inaan la goy karin dhinaca kalena 5tan waxaa loo sameeyay ciqaab adag oo qof alla qofkii ku qamaara naftiisa oo arrintan u dhawaada ciqaab adag oo waxaa loo sameeyay uusan mar dambe loogu talagalay inuusan ku fududaan oo uusan ugu dhawaan tusaalan hadduu diintii u gaaloobo waxaa la sharciyeeyey qofka murtadka ah dilkiisa hadduu naf islaameed dilo in asna la dilo gardarro hadduu ku dilo maalkii islaameed hadduu u xado in gacantii laga jaro sidaas lagu wado marka in naf la gooyo muslim ah wax qof muslima inay ka soo fusho ama uu ku indha adaygo ama uu go'aansado waxay tahay maahan diinta islaamku qofka mu'minka ah siyaabo kala duwan ayay u xafiday tusaale ahaan ilaahay wuxuu xarimay in sideedaba naf bani aadamka naftiisa in la gooyo waxay rabta ha noqoto si gardarro ah oon sharci ku salaysnayn in naf lagu jaro diinta islaamku way xarinto qofkaas ama muslim ha noqdo أما قالها النقد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق شريعة مركة وحي حارانت النميذ السيدة دبا نف مسلم أما هالنقطة أما قال هالنقطة إن نفتي سلقوي شريعة وحي حارانت النميذ مركة لقرها وقف قال وأسوق الدين تي جد قوي كل نقضي وعقبات نقضي إيوه qof muslim ah oo isagu naftiisa wixii u dhowraayay oo u xafidayay isagoo ka soo tilaabsaday sida qof dilay iyo wax la mid ah ama qof diintii isagoo ka baxay marka diinta islaamku waxay xaaraantinimayday in horta naf la jaro markii naf la jaray nafta la jaraahu isku qiimo ilaahay agtiis kama joogto nafta muslimku waxay joogtaa meesha ugu dambeeyay sidaas awgeed ayaa aayado fara badan oo quraanka ah ay arrintaas ka hadlayaan iyo axaadiis aan la soo koobi karin haddaan wax yar ka soo qaadano waxaa ka mid ah aayadaha ka hadlaya walaa taqtulu an-nafsa allati harrama allahu illa bilxaq markuu ilaahay diiday qofkii arrintaas khilaafa oo warka ilaahay garab mara maxaa ku dhaca waman yaqtul مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذاب ولعنه وأعد له عذابا عظيما أفر عقابه إلهي اسكت دبردقي قف مؤمن الدلا إلهي مركك وذوحه يري فجزاؤه جهنم ماشا لقينا وهو يقول النقنة والله أبال مرنة وحيهرت النقنة جهنم
isagoo weliba ku waaray ilaahay waa u carooday wuxuuna u diyaariyey cadaab weyn intaasoo shay ayaa la ysdaba dhigay 4 ciqaabood oo midba midda kale ay ka adag tahay rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kama fi xadiid abi hurayra fi saxiixayni wagayrihima wuxuu yidhi ijtanibu 7 almuubiqaat war ka fogaada oo ha u dhowaanina 5 shay 7 shay oo la yidhaha muubiqaat waa waxyaabo qofku hadduu u taabto oo uu far u taago halaajinayaan oo ku ridayaan ciqaabta tiimbinayaan asxaabtu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah wamaa hun 7daas maxay yihiin nabigu u tiriyay marka ashirku billah والسحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث حديث كان بخاري مسلم لا وريي 7 شيء oo muubiqaad ka liira oo qofka halaajiya oo aan waxba ka reebin waxa kamid ah yiri rasuulku wuxuu tiriyay 7dii laabay ashirku billah in qofku uu shirkiga ku dhaco inuu sixirka uu sameeyo iyo in tusaalahan uu qof uu dilo naftii ilaahay uu xaaraantinimeeyay in la gooyo ay hadii aan lagu goynayn si sharci ah oo ilaahay uu ogol yahay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intuusan dhiman dhowr iyo 80 maalmood ka hor isagoo taagan maalinta carafo sanadkii u dambeeyey oo rasuulku intuusan geeriyoon dhowr iyo 80 kaas beri ka hor waa halkii xaj oo uu xajiyey intii waana xajka la yidhaha xajatul wadaac xajkii sagootinta khudbo wuxuu jeediyey khudbad dheer ah oo meelo badan taabanaydo caddaynayda sida in loo xajiyo la rabo bani aadamkan iyo xuquuqda ay isku leeyihiin iyo waxyaabaha inaan lagu loo dhowaan la rabo caddeeyey bani aadamka oo dhan ayuu qaar kula khitaaba waxyaabaha la raba xiriirka bani aadamka oo dhan inay ay u noqdaan buddhig iyo dadka muslimiinta ah dhexdooda markaasuu khudbadaas nabigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa xadiid dheer oo xadiid jaabir fi saxiix muslim wuxuu ku yidhi ayuha annaas ina dimaa'akum wa acraadakum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada carabtu waxay yiqiineen in iyadoo la joogo bisha dilxija in aan dhiig la daadi karin oon dagaal iyo dhibaato la samay karin way yiqiineen maalintaasoo kale inaan dhibaato la geli karin agtooda aad iyo aad ay qiimo ugu lahayd oo wax loo dhowaado ma ahayn meesha la joogo oo magaalada maka ahna ma ahayn meel hawlahaas iyo dembiyadaas lagu galo way yiqiineen waxaan wax weyn oo aan loo dhowaa karin inay yihiin maadaama taas ay yiqiineen ayuu tii wuxuu rasuulku ugu lifaaqay arrimahan kale oo wuxuu sheegay sida kuwaas aad u fahamsan tihiin inaan loo dhowaa karin oo aan marnaba aan la taaba karin ayaa sidoo kale waxaan loo dhowaa karin oon la taaba karin arrimahan ah dadka dhiigooda sharaftooda iyo karaamadooda maalkooda waxyaabaha sidaas oo kalea waxay xaaraan u yihiin sida maalintaas carafo oo la taagan yahay xurmada ay leedahay beledka la joogo bisha lagu jiro xurmada ay leedahay oo kale ama in dembiyadan lagu galo sida ay xaaraanta u tahay oo kale ayaan loo ogolayn kuwan nabigu wuxuu caddeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in kacbada oo dadka qalbigooda meel weyn uga taal oo ah meesha salaada dhan loola jeesto in iyada dhan la tirtiro la burburiyo in ay ka daran tahay qof muslim naftiisa in la jiro axaadiista qaar way arrinta way sii fogeynayaan oo waxay leeyihiin in adduunka dhan la zuuliyo oo la tirtiro ayaa waxay ka sahlan tahay oo ka qiimo yar tahay qof muslima in naftiisa la jiro marka in qof la dilaaho xaqiiqatan wax sahlan maahan wax qof muslina inuu gacan la gala maahan waa wax qofka qalbigiisa iyo afkiisa iyo carabkiisa iyo gacantiisa inuu ka ilaashado ay tahay
intaas ayaan kusoo kooba kelmadeyda anigoo u banaynaya booska culimada iyagu si fiican arrintan u cadday doonaan oo u faahfaahi doonaan oo naashnaashi doonaan oo naxnaaxi doonaan intaas ayaan uga baxaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزا الله شيخ خير الجزاء وبارك الله فيه.